haddii hadalku uu yahay lacag, aamusnaantuna waa dahab. Imaam Ashaafici. Aamusnaantu keliya maahan inaadan hadlin, waa xikmad, waa hub u adeegsado qofka garaadka leh. Qof kasta wuu aamusaa, balse dadka garaadka leh ayaa og goorta la aamuso iyo sababta loo aamuso, iyo sidoo kaleeto aamusnaanta iyo faa'iidada ay leedahay. Muuqaalkeenna maanta waxaynu ku soo qaadan doonnaa aamusnaanta xilliga ay wanaagsan tahay, iyo sidoo kaleeto xikmadihii ay ka dhaheen culimada Islaamka. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. inta aynan guda gelin muuqaalkeenna maanta, fadlan daawade haddaad nagu cusub tahay nagu soo beer, haddaad horey noola joogtayna fadlan muuqaalka like saar oo la wadaag asxaabtaada. ku soo dhawaada mar kale muuqaalkeenna maanta. aynu ku bilaabno faa'iidooyinka ay leedahay aamusnaanta, inagoo ku xijin doona xikmadihii laga yiri dhanka culimada, waana xikmado xiiso badan leh. haddaba aynu ku bilaabno faa'iidooyinka ay leedahay aamusnaanta. marka koowaad waa xasilooni. waxay xasilisaa maskaxda. hadal kasta oo aad tiraahdo waa lagu qaban karaa, laakiin markaad aamustid waxay ka sii xasilin badan tahay maskaxda, adigoo aadan ka warwaraynin in lagaa daba yimaado hadalkii aad tiri. marka kale waa xirfad. waxay ku oggolaanaysaa inaad si fiican u dhegaysatid oo aad wax badan ka baratid dadka kaleeto. waa tilmaamo cilmi. qofka aqoonta leh badanaa waa mid aamusan inta badan, inkastoo wax badan uu dhegaysto. qofka aqoonta leh waa digniin. mararka qaar aamusnaanta ayaa ka darnaan karta hanjabaadaha. waa falcelin. goorta ay xaaladdu kulushahay, aamusnaantu waxay noqon kartaa jawaabta ugu xikmadda badan xilliga uu qofku caraysan yahay. haddii aynu ku xijino xilliyada ay habboon tahay inaad aamustid. marka aad caraysan tahay waa inaad aamustid, sababtoo ah waxay u ron tahay maskaxda. waxaa laga yaabaa inaad dhaqsidii la soo boodid falcelin. marka qofka uu xanaaqsan yahay uu kula hadlayo si kulul, waa inaad iska aamustid. markaad og tahay in hadalkaadu dhib keeni karo, waa inaad iska aamustid. marka ay jirto xaalad khatar ah ama degdeg ah, waa inaad iska aamustid. marka aad dareento inaadan haynin xog dhammaystiran, waa inaad iska aamustid, sababtoo ah intan dhan waxay badbaadinayaan fikirkaadii. haddii hadal khaldan aad tiraahdid, laga yaabaa in mar walba aad ka shalaydid hadalkaasi. haddii aynu u gudagalno xikmadihii ay ka yidhaahdeen culimmadii Islaamka, waxaynu ku bilaabaynaa xadiidkii uu nebiga naxariis nabadgelya korkiisa ahaatee uu ku yidhi, qofkii rumaysan Ilaahay iyo maalinta aakhiro ha yidhaahdo khayr ama ha iska aamuso. sidoo kaleeto Cumar bin Khadaab, Allah ka raali noqdee, wuxuu yidhi, qofka kama shalaayo aamusnaanta, balse dad badan ayaa ka shalaayay hadalkooda. Luqmaan al-Xakiim. aamusnaantu waa xikmad, qof walbana ma awoodo. al-Imaam Ashaafici. haddii hadalka uu yahay lacag, aamusnaantuna waa dahab. al-Imaam al-Ghazali, Allah u naxariistee, waxa uu yidhi isagana, qalbigu wuxuu jecel yahay xasiloonida, aamusnaantuna waa furaha xasiloonida qalbiga. qofka hadalkiisu badan yahay, qalbigiisu wuu qalalaa, midka aamusnaantuna wuu nadiifiyaa. al-Imaam Ibnulqayim al-Jawzi. waxaa ka mid ah axkaamta aamusnaanta, waxay badbaadisaa qofka, ka ilaalisaa dembiga, waxay kor u qaadaa sumcadda, waxayna fure u tahay xikmadda. al-Imaam Maalik ibnu Anas. haddii qof hadli lahaa marka uu runta yaqaano, dad badan baa aamusnaan lahaa. al-Imaam an-Nawawi. aamusnaantu waxay ka mid tahay akhlaaqda qofka muslimka ah. haddii aysan jirin baahi ah in aad hadasho, aamusnaantu waa khayr. xikmad carbeed ayaa dhehayso, waxaa jira laba hadal oo aan laga shalaynin, mid aadan oran iyo mid aad tiri adoo aamusnaanta ka doorbidayo. sidoo kaleeto aamusnaanta waxay leedahay sharaf. hadalkuna wuxuu leeyahay mas-uuliyad. kii hadli waayey ma ceeboobin, kii aamusayna ma khasaarin. gabagabadii iyo gunaanadkii muuqaalkeena, aamusnaantu ma ahan tabardaro ee waa xeelad. ma ahan ceeb ee waa caqli. ma ahan cidlo ee waa fikrad. markaad rabtid inaad sheegtid xumaan, aad aamustid, waa khayr. marka laga aamuso muranka, waa guul. marka laga aamuso caybaha dadka, waa akhlaaq. haddaba haddii aad intaan soo gaartay, waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani. fadlan daawade
haddaad nagu cusub tahay nagu soo bira, haddaad hore nala joogtiina fadlan muuqaalka laag saara oo la wadaag asxaabtaada. intaynu ku kulmi doonno muuqaalkan muuqaalkiisa kaleeto waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.